wasiirka wasaaradda deegaanka dhirta iyo isbeddelka cimilada mudane aadan barre ducaale ayaa ka hadlay xanta ah inuu wasiir u yahay shacabka ku dhaqan gobolkan waqooyi bari gaar ahaan ismaamullada Wajeer, Mandheera iyo Gaarisa. hadalkan ayaa yimid kadib markii shakhsiyaad dhaliilsana xukuumadda ay ku eedeeyeen in wasiir ducaale uu yahay shakhsi kaliya u taagan danaha shacabka gobolka marka loo eego shacabka kale ee ku dhaqan dalka. balse wasiir ducaale oo aragti ka bixiyay arrintan ayaa sheegay inuu wasiir u ahayn ama uusan ka ahayn gobolkan waqooyi bari, balse uu wasiir u yahay shacabka dalka. taasina ay tahay waxa uu ku dhaartay marka uu xafiiska tegayay oo ah inuu u adeego shacabka waddanka, taasina Kenyaanka ay u soo doorteen. Sasa ile shida tulipata, wafuasi wetu wanamwambia rais, hapana, sisi ndio tumejaza hii debe. Hiyo ni kweli, mlijaza debe, mkatupatia wabunge wengi, maseneta wengi, magavana wengi, mkatupatia rais na makamu wa rais, lakini walipotengeneza maunda serikali, hiyo serikali si serikali ya UDA, si serikali ya Kenya Kwanza, hiyo ni serikali ya Kenya. Na William Ruto, President William Ruto is the President of the Republic of Kenya. Na kama kuna mtu anafanya katika serikali ya President William Ruto na ako na agenda ya ukabila ama ya mahali ametoka ama ya dini, I want to tell you for free, because I have worked with that man for 20 years. It is impossible. Alikuwa Turkana jana, muliona vile alivaa nguo ya Waturkana. wasiir ducaale oo aqoon durugsan u leh shuruucda dalka, sidoo kalena muddo 20 sano matalayay shacabka magaalada Gaarisa, ayaa ka hadlay doodii xilka qaadista madaxweyne ku-xigeenkii hore ee qaranka Mr. Rigathi Gachagua, ayaa sheegay inay sax tahay maadaama uu ku xadgudbay dastuurka. balse arrintan ayaa waxaa ka carooday dad badan oo ka agdhowaa madaxweyne ku-xigeenka qaranka Mr. Rigathi Gachagua kadib markii uu si sharci ah u sharaxay in Gachagua uu istaahilo inuu xafiiska baneeyo. wuxuu sidoo kale uusan ka waaban inuu u jawaabo dadka ku xadgudba sharciyada, waxaana maalin ka hor uu dhaleeceeyay hadal soo jeedintii senatarka ismaamulka Nandi Mr. Samson Cherargei oo ahayd in muddo kordhin 7 sano ah la gaarsiiyo mas'uuliyiinta la soo doortay. ducaale ayaa sheegay in arrintan ay xadgudub ku tahay muwaadiniinta dalka ee meel mariyay dastuurka sanadkii 2010 ayna kaliya iyagoo awoodaan inay sharciga wax ka bedelaan. wasiir ducaale ayaa sidoo kale dadka aqoonta fog u leh ama la soo shaqeeyay waxay ku tilmaameen inuu yahay shakhsi ka fog nin jeclaysi ama khiyaanada, waxaana tusaale ahaan loo qaadan karaa waqtigii uu ahaa wasiirka wasaaradda difaaca, xitaa ay isqoomeen mudanayaal ka tirsan baarlamaanka oo doonayay in loo askareeyo shakhsiyaad aan soo marin wadiiqada laga doonayo dhalinyarada ku biiraysa ciidanka difaaca qaranka. Cabdiqani Maxamed, Iftiin FM, magaalada Gaarisa.